waxaa aada u badatay maalmahan su-aasha ku saabsan jumcadii iyo maalintii carafa ayaa iswaafaqaya. marka ma la soomayaa maalinta carafada mise la soomi maayo hadday jumcada waafaqdo? horta maalinta carafa soomitaankeedu waxay ku sugan tahay axaadiista nebiga sal alla alay wasalam. fadligeeduna wuxuu rasuulku ku sheegay sal alla alay wasalam 2 sano dembigooda in ilaahay ku dhaafayo dembigii sanadkii hore iyo sanadka soo socda. taa horta waa mashruuciyada maalinta carafa soomitaankeeda iyo ajirkeeda. hadday jumco waafaqdo, jumcadana waxaa sugan axaadiis fara badan oo nebigu sal alla alay wasalam uu leeyahay laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ilaa an yasuuma yowman qablahu aw yowman bacdah. midkiin yuusan maalinta jumcada soomin ilaa inuu maalin ka hormariyo ama maalin ka dambaysiiyo mooye. waa lafdiga bukhaari iyo muslim ay soo saareen. waxaa kaloo isagana jira laa tasuumuu yowma aljumucati mufradan, maalinta jumcada ha soomina isagoo keligii ah. axmed iyo nasaa-i keyrkood baa iyagana soo saaray. lafdi kale wuxuu leey rasuulku wuxuu reebay maalinta jumcada lagu gooni yeelo soon lagu gooni yeelo. marka carafadii iyo maalinta jumcadoo la diiday in soon lagu gooni yeelo iyo maalinkii carafada oo soonkeeda laysfaray hadday iswaafaqaan see baa la yeelayaa way su-aashu. jawaabtu waxa weeye culimmada badankood waxay u badan yihiin axaadiista masalada ku soo aroortay markay iswaafajiyeen oo macno ay isugu timaado ay sameeyeen, waxay leeyihiin badankood in la soomo maalinta jumcada hadday carafo waafaqdo